waa maxay multi-level marketing ama nidaamka suuqgeynta tooska ah? Ma ka warhaysa shirkadaha soo gaadhay waddankeena kuwaasoo ku shaqeeya hab network marketing? Shareecada Islaamku maxay ka qabtaase? Culimadu maxay ka yidhaahdeen nidaamkan suuqgeynta tooska? haddaba waa kuwee shirkadaha waaweyn ee ku shaqeeya MLM ama multi-level marketing ama sidoo kale iibgeynta tooska ah ama direct selling. Amway, Avon Product, Happy Nutrition, Market America Worldwide iyo Alpha Group Nutrition, magac ahaan loo soo gaabiyo AG Nutrition, lagana leeyahay dalka Malaysia. Wali ma maqashay ma noqotay xubin ka mid ah shirkadahani? Fikir nooca ayaad ka haysataa? Ma la isku dhacaa mise waa nidaam shaqo oo caadi ah? daawade si aad muuqaalkan wax badan uga ogaato nala joog ilaa iyo dhamaadka. Waxaa idiin soo tabinayay barnaamijkan waa anigoo ah Nadra Saciid iyo anigoo ah Khalid Daahir Ali. Ma la isku dhacaa suuqani loo yaqaano network marketing? waxaa jira noocyo badan oo suuqani ka kooban yahay iyo sidoo kale shirkado fara badan oo siyaabo kala duwan uga xamaasha ugana shaqeysta suuqa network marketing loo yaqaano. Direcop statistics la sameeyay 2020 ayaa qiyaastii sheegaya in ugu yaraan qof kamid ah 13 qof oo Amerikaanaba oo waliba qaan gaar ah uu qayb ka yahay nidaamka loo yaqaano multi-level marketing ama LMM-ka. waxaa jira qiyaastii in ka badan 6.2 milyan qof oo Amerikaan ah inay si toos ah ugu howlgalaan ama ugu shaqeeyaan nidaamka loo yaqaano MLM multi-level marketing ama sidoo kale direct selling-ka. shirkadaha ku shaqeeya nidaamka loo yaqaano multi-level marketing ama LMM-ka ayaa waxay soo xareeyeen in ka badan 35.4 bilyan oo doolarka Mareykanka ah sanadii 2018. 2009 in ka badan 94% xubnaha loo yaqaano Direct Association Sellers ama DAS ayaa ku howlgalay ama ku shaqeeyay nidaamka loo yaqaano multi-level marketing ama LMM. Multi-level marketing waa istaraatiijiyad qaar ka mid ah shirkadaha iibinta tooska ah. Nidaamkan suuqgeyntu ma aha mid lacagtaada lagu dhici karo sababtoo ah marka ugu horeysa ee shirkadahan ka mid noqonaysid waxaad iibsanaysaa badeecadaha ay soo saaraan. taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay adigoo intaad dukaan gashay kadibna si toos ah alaab u iibsaday, lacagtiina bixiyay sidaas la mid ah alaab ayaad iibsanaysaa, lacagtana waad bixinaysaa. haddaba shirkadahani waxay kuu sii raacinayaan system ama akoon ku khaasa oo aad ku shaqaysanaysid cadaynaysana inaad tahay xubin ka mid ah iyaga. halkaas waxaad ka ogaan karaysaa dhammaanba shirkadaha wax soo saar kale in aanay noqon karinin habeeraati mid dadka lagu dhici karo. noocyada suuqani ayaa ah single tier marketing, two tier marketing iyo sidoo kale multi-level marketing ama MLM. shirkadaha suuqani ku jira ayaa noqon kara dhowr nooc waxaana ka mid ah currency company-ga iyo sidoo kale product company. tusaalayaasha shirkadaha coin company-ga loo yaqaano waxaa ka mid ah Foreign Exchange, Bytext iyo Ethereum iyo waliba shirkado kale oo coinka ku qaraabta. si fudud ay kaga tagi karaan meesha markaas ay ku sugan yihiin maxaa yeelay ma lahan wax product ah oo ay ku soo hayn karaan meeshaasi. waxaa loo isticmaali karaa sarrif oo kaliya iyo in shayaalka markaas la heli karo la isku bedelo. shirkadaha loo yaqaano product company-ga waxay la yimaadaan alaabo kuwaasi oo ay siinayaan macaamiisha iyo dadka ka iibsanayaba. waxay noo ogolaan doonaan inay dadku dib u iibsadaan si lacagtoodii ay u soo ceshadaan faa'iidana uga raadiyaan. qaar ka mid ah shirkadaha loo yaqaano product company ayaa waxay leeyihiin istiraatiijiyad u ogolaanaysa in qofka macaamilka ah ama xubinta ka markaasi uu dib u iibsado ama dib u helo lacagtiisii. badanaa suurtagal ma aha in shirkadaha soo saara alaabaha ama productiga leh ay markaasi disappear garayaan ama ay ka tagaan meesha ay joogaan maxaa yeelay mar walba oo suuqoodu uu aad u sarreeyo waxay ku qasban yihiin inay ku sugnaadaan dalka ama goobta markaasi ay ku sugan yihiin. Shareecada Islaamku maxay ka qabtaase? Culimadu maxay ka yidhaahdeen nidaamkan suuqgeynta tooska? arinta labaad waxaan la kala qaadanayaa waa cumuula waa commission oo kale. waxa la isku haystaaba commissionkaasi banaayim sama banaana. commissionkaasi uu banaayaho qofka bini aadamka ee dad keenay dadkaas uu keenay wixii ay iibiyeen ayuu commission ku yeelanayay dadkii isagii baa tacabkiisii geliyay isagii baa u sharxaya isagii baa ka warhaya. haddaba daawade haddii aan su'aal ku weydiiyo weli ma ka mid noqotay shirkadaha wax soo saar kale ama ma ku biirtay fikir nooceeya ayaad ka aaminsan tahay? fadlan nagula wadaag xagga commentiga. waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan. fadlan ha ka ilaawin in aad like saarto siino share garayso adigoo la wadaagaya asxaabta. waa anigoo ah Nadra Saciid iyo anigoo ah Khalid Daahir Ali.